سو دابيري بودوي نمبر 4 صاحب بنادر سي بان كالوريك بنادري كالوريك كالوريك waa xirfad ku dhisan cod qaylo dheer ah si aad u soo dhiciso nolosha maalinlaha ah ee qoyska waxaana dhalinyarada ka shaqeysaa shaqadan kirishboyga ay maalinta xigta u dhabagalaan si la mid ah maalintii hore Bilaal Cabdullaahi ayaan kula kulmay mid ka mid ah busteejooyinka gaadiidka BL-ka laga raro isaga oo shaqadiisa ku jira waxaana uu ii sheegay in ay la kulmaan culayso dhinaca lacagaha ah kaasoo kaga yimaada dadka rakaabka ah ee gaariga fuula aad iyo aad dadkan waa way dhib badan yihiin boqolkiiba 90 inta macnaha ugu dhib badan mararka qaar iyaga og gaariga la soo heshiiyay hadana keenayaan qartaati iyo waxyaabo saabsan fahansan dhibkaas ayaa jira ay shaqadan waa ku jirtaa ka waran mararka qaar dhibaatooyinka ala kulanta marka waxaan kula kulnaa anagoo soo heshiinay soo balanay waxa gaarinaa aan soo dagaalnaa isfeerna macnaha oo dhib ka yimaada dhibkaas ayaa jira nin iyo haween iyo dhowr qofood iyo waa haween soo heshiinay infaante anagoo weeda u socona marka in badan dad badan oo tiro badan ayeen marka anagoo soo heshiinay waxay dheen macnaha waxa lagu soo qaadaa dadka 12,000 lacag oo gaariyada infaante habeenkii marka anagoo sidii ku soo heshiinay waxay tiri gabdhihii wixii ahaayeen markaas waxay dheen anaga 8 kuna dhiibina inkastii meesha aan imaan anagoo tabeelaha joogno infaante marka waxa anaga gaariga gala nala suga wadada jaamiyad marka nala suga gaariga gala hadii kale 8 kuna dhiibina waa degeynaa ayeen infaante ana 12,000 ku gaar hadii tahay waxa idinka gooni idin ah waa infaante marka dagaal meesha qartaatay dhibaadan aan ku galnay meesha tan ugu dhib badnay tahay aad u maasantahay shaqada ku jirto kaaga mahadcelinaa waqtiga ay aad u maasantahay yarkaana waxa uu ka mid ahaa tiro dhalinyaro ah oo iyagu marka shaqadooda howl maalmeedka haysta isla markaana aan halkan kula kulannay iyagoo ama isagoo iga warbixiyay shaqada uu halkan ku hayay sidoo kale sida ay u dhibka badan tahay dhinaca kale waxaa jira culeysyo dadka rakaabka ah ay ku qabaan iyaguna qaar ka mid ah dhalinyarada Muqdisho ayaa ii sheegay intaasi ay jirto si looga baxana loo baahan yahay in la sameeyo nidaamka busteejada iyadoo oo qofku ku xisaabtamayo hal qiime waxa dhacaysa beelku ina ku taqaanay beelkan lacag lagu raaco iskoyskan saalahan iskoyska lagu tago lacagtaasna waa ku raaci jirta beel waxa laga yaabaa wadadan ma ahana wada kale ka shaqeyn jiray inuu maanta wadadan kala yimaado asaguna meeshii 2,000 lagu qaado ama 3,000 oo 5,000 4,000 ku tago marka hadhow adiga lacagtaada la soo baxdo ku goonada dhahdo uu ku leeyahay 4,000 keen meeshii 3 wadad waxa la sameyn karaa boosteejadan ilaa boosteejadeeda kale in la dhaw qiimo go'an lagu raaco ticket go'an boosteejada kalena ticket kale go'an qiimo ku fido qofku wuxuu sameyn karaa ticketka uu ku xisaabtan wuxuu leeyahay boosteejada tan aan ku raacaya taa kale aan ku raacay lacagtiisa waa go'anta beelkuna lacag inta ka duwan ama ka badan ma ka qaadi karo dadka la qabsanayo si gaar ah aniga iga qabsanayo hadii aan mid kamid ah ka soo qaado waxa jirto inaad beelkii soo raacdo oo kale adiga kugu lishiye meel hebel ka soo istaagaya oo dad weyn kara ama caqabad kala qabsanad markaas oo leeyahay iga deg walaalo meesha aan jirto lacagtiin si wuxuu ka rabaa in lacagtii oo meesha aad ku tagi lahayd ka qaato isla sidaas oo kale asagoo ku geenin meeshii inuu marka caqabadaha ugu badan waxa kamid ah taas oo kale Cali Bacadow waxa uu waajiib u soo ahaa shaqada kirishboynimada inkastoo uu hadda yahay drobal haddana shaqadaas hore ayuu u soo maray waxa uu iga warbixinayaa dhibka ay leedahay iyo sidoo kale culeysyadu mararka qaar ay la kulmi karaan dadka ka shaqeeya way jiraan wax marar badan ay dhacdaa qof dadku waa ku raacayaan ayagoo waxba ku weydiin qiimaha hadhow markii ay dagayaan lacagtiisii markaad dhacdo waxay ku leeyihiin wali aniga intaan ku raaci jir dan ma ku taa kirishboygu waa isku leeyaan dabcan anigana marka waxaan ilaadaa orniyo naga soo wad waxay ayna siisan oo soo qaad maxaa sameeyay waa iska tagnaa way bulshada Soomaaliyeed hadii la isdagaalo hadda koor waxa dhacday maalin dhaweed nin darawala iyo nin xamar weyna toos soo rartay 5,000 shilin nin la marafal uga digay wuxuu soo taagay 3,000 oo 2,000 aga dhimanaysi waa isdagaaleen markay isdagaaleen darawalkii waa la xilay tolkiis waxaan ku dhadhaxay $75 inaan bixin shaqadan oo ah shaqo qaylo ku dhisan isla markaana qofka shaqeynaya uu yahay qof aad u qaylinaya ayaa haddana waxa ay tahay mid ay aad u adag tahay isla markaana dhalinyarada sidaan u shaqaysataa ay kala kulmaan dhibaatooyin badan Cabdullaahi Maxamed Umar Daacad Shabeelle TV Muqdisho